Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaantiina inta walaal igu xiran meel kasta aad joogtiin. Subax wanaagsan. Kulli anaga subax inoo tahay, waan soo kakacnay alxamdulillaah. maasha allah, idinkana saas idin rajeynaa inaad soo nabad kacdeen. Inta waqti kale u tahayna waqtigiinoo wanaagsan alxamdulillaah. maanta qaxwo ma karsanin, waxaan rabaa kafeegan yar inaan kusoo tuurto ama aan sameysto. biyo kulul aan ku shubaa. maasha allah, caadi maaha, aada u macyahay. sokortiisa iyo wixii wax walba uu wataa kulley ani ahaantayda, laakiin dadka sokoray ku darsadaan, ani saana igu filan yahay. maasha allah, caana lagu darsadaa haddaad jeceshahay, laakiin sokor iyo caana buu wataa oo meel dheer maasha allah. kadibna waxaan rabaa quraac yar oo qurux badan inaan kusoo tuuro. maasha allah, caruurtiina aan nafaqaysano aan ku jirnaa weli jadwalkii ciyaalka. ilaahay noo diisto. maasha allah, kafeegiisaana kusoo baxay. mashiin in lagu soo kariyo maleysaa. meeshaan waxaa iyaalo timir iyo saliid macsaro. maasha allah, yaa u xiisee timir haddaa cunaa saliidan ku jeclaane. waa kaas marka insha allah quraacdeynana saanay ahayd. quraac yaroo aada u fudud waaye, laakiin ilmaha aada uga helaan. malwax iyo ukun yar aan isku soo duduubay, markasaan u sameeyey iyo waxyaabaan ku daray aan rabaa inaan la wadaago. subaxda idin wacnaato. maasha allah. haddii janalkeena kugu cusub yahay walaalaha qiimaha leh, waxaan idinka codsanaa inaad subscribe noo saartaan. haddii hore noola joogtay oo fiideogeena kugu cusub yahayna like noo saar, ra'yigaagana commentiga noogu soo qoro insha allah. inta walaal igu soo biirtay oo cusubna waa soo dhaweynaa gacmo furan, niyad qurux badan, walaal idin jecel. soo dhawaada. fiideogeena bilaabaneynaa. 4 xabo ukun ugu jirto saxankan yariiska. baaquligana kusoo shubtay. malwax sidii loo qasaa soo qasaa. 2 qaando sokor aan kusoo daraa insha allah. ilmaha haddii maanta malwax loo sameeyo oo caadiga ah, birina malwaxdii oo si kale leh loo sameynaa, waxay u maleeyaan wax kaloo cusub in loo sameeyey. meeshaan qaandadan haddii idin tusaa waxaa ku jiro xulbada shiidan. xulbada maasha allah qiimaheeda mala soo koobi karo. ilmaha way korisaa, way ku cayilaan. cusbo yaraan ku daray, bakin aan ku daray. bakantana kasta waxay ka dhigaysaa suuf camal, dulsho camal ay ka dhigaysaa. marka intaanaas ka soo garaaca. kadibna caanahan agteeda yaala ayaan rabaa inaan kusoo qaso. marka haddii mashiinkan yar haadan haysanin, waxaa ku sameysan kartaa midka dulashada lagu garaaco oo shabaq yariis ama farkeeti ama qaando. muhiim ahan bahalkan, wuxuu bedelay malahan, laakiin howl fududeen camal. alxamdulillaah. ilaahaygiina soo wada kiciya maxaad iska leh. maasha allah, aaday usoo badatay, xumbo badan ay keentay. marka kulley waxyaabaan ku qasan lahaa kusoo darsanaa ani iyo boorish maxaana kala haysto. maasha allah, boorishta inaba caadi maahan. dhinaca cajiin ahaan haddaa qasanaysid aada kugu fiican tahay. sidii aadi waxay ku sameysan tahay qamadi. marka burka keligiis intaa sameysan lahayd, boorishta haddaa haysid inaa ku darsatidaa beele ah. marka waa kaas. ani wax walba cajiin kasta aan qasaayo kulley 99% way ku jirtaa. waa kaas. marka intaana rabaa inaa mashiinkan yar aan kusoo yareereeyo. marka haddii mashiinkan yar aadan haysanin, qalaadada ku shubanaysaa, qalaadada kusoo yareereynaysaa. marka kow horta burki iyo
qoyaankii isgaarsiinoyaa maxaa yeelay marle aan geliyooshado si dhan ay gusoo faniinaa ma burkad qaleel maduu yahay. marka saana ugu soo shiida insha allah. kadibna waxaan rabaa saaskii lagu cuni lahaa ama waxyaabihii yariiska lagu cuni lahaa ayaan sameynaa. ukunaan rabaa inaan sameeyo, qudaar kale ima taalo, laakiin ukun iyo basal isku soo sameyna insha allah. marka waa kaas fasaxan ku jirna ayaantaan. marka fasaxaga dhexdiisa aada ay u mashquul unahay. qofkii ilma haysto mashquulkiisa aada u badan yahay. insha allah waa noo soo badin doonaa. haddee ka heshee noo soo sheega insha allah. maamadana kama maqna. kulley ani janalkeyga waxaa lagu kasaayay cuntada maamada, cuntada oo miisaanka aysan kordhineynin, waxna kuu tarayso nafaqo leh, maamadana energy badan siinayso. marka dhowr abaayooyin ay ugu dhaheen ilmaha wax la siiyo, ilmaha wax lagu cayiliyo noo soo geli. saas darteeda marka meeshan waxaan kusoo shubtay 5 xabo ukun. haddaadan haysanin 2 xabo haysatid, 1 xabo haysatid, ama weji kalaaba bedelan kartaabo. marka maanta waxaa ku sameysan yahay quraacdeen waxay ku sameysan tahay ukun iyo caano. badanaa 50% ukun iyo caano waaye. waa kaas marka ukuntii haddana caanaan kusoo daray. baaquligan yar waxaa ugu jiro maraq digaag iyo kamsarta qalalan iyo basbaaska marwo. maasha allah basbaaskan dhadhan qurux badan u yeelaa haddaa ku darsatid suugada qudaarta. maasha allah qudaartii aan idin dhihin sorry raalli ahaada. waxaan ka wadaa wax walba adiga dabka saaraysid haddaa ku darsatid maasha allah caraf gooni oo leeyahay. digsigaan dabka soo saartay. marka basashii aada aan usoo yaryareeyay saa ujeediin. mashiinka yar haddaad haysatid ku jarjaro, haddaadan haysanina gacanta aada ugu yaryarey. waan ognahay ciyaalkiina ma jecla waxyaabaha waaweyn oo saxanka marka la saaraba basasha isha qabanayso. yaanyada iyo waxyaabaha aad karsanayno. marka ilmaha waxaa yaabaha ku cayilaan waxaa kamid a cunto walbaba ay jecel yihiin inaa u sameysid. ma ahan cunto gooni a lagu cayilo ma jirto, laakiin say wax u cunaan u kala fiican. cuntada marka hadda adi jecesha wax alaal waxaad jecesha intaa karisid aa iska hordhigtid kuma korayaan. laakiin haddii adi cunto alaal cuntaada ala tashatid maxaa noo sameeyaa. ukuntiisaan kusoo baxday. marka digsigeena yaraa dabka soo saaranayna, cajiinkeena sameysanayna. marka haddaad dhahdeed maxaa noo sameeyaa oo halaal waxay jecelyiin haddaa u sameysid si niyad lay ku cunaan ay maasha allah. marka waxyaabahaas lagu cayilaa, waxyaabaha brotiinka lena in loo badiyaa fiican sida ukunta iyo barandhada iyo maasha allah way ka weynaanayaan. ilma allah haddaa ilmo badan aa haysatid waxaa leedahay ayaga dhan waa u bandhigaysaa. laazim waa imaanaysaa, kalamaan waa imaanaysaa. ani kanaa rabaa meeshii loo bataa. marka adin aa u badanaysaa. 3 haddii meel isku raacdo, hal qof meel kale oo micno cunto kala dalbado, 3 qof inuu raaco waay qofkaas kale. haddii 2 iyo 2 noqdaan waxaa leedahay maanta midkaana noo sameynaa, berin adina fikirkaaga maasha allah aa noo sameynaa. waxyaabaha adi aad jeceshaa noo sameynaa. marka insha allah qancinta wax weyn waaye. kalsoonida sidoo kale waa kaas. marka quraacdeena saanay kusoo baxday. alxamdulilah ilaahayna siiyaa mahad iskale. walaalihiina aan haysanin waxaan rajeyneynaa insha allah oo ilaah aan ugu baraneynaa inuu ilaaha intaan inka badan siiyo. niyadooda say jeceshahay inaa ilaah u sameeyo. anigana sidoo kale
dambigan ilaahay iska dhaafo, waalidiinteen ilaahay u naxariisto. intaan ka wada kulmayno fiidiyowga xiga.